ساش أوريسا هذه شيخنا الفاضل أي نقول كلنا كايلدان هو جبر يرويان وجبر هذه أول والسن وجبر جوركي كعاجي أو كتكتي أو ديجي أو ترانو جورجن بمايو صلا صوت وامعي شيخ أبو طلحة جبر يروي حيتري وحنكو ساكر إنه الأذق أو عريرية حرير كودي حيا أبا هيو يدي وحيتري وعامل قلفسن أبو وح وكل رقم السربي سر مر والبو هيو تبا يعني متقنا إنه الأذق مرة قاركود جد بكو حرير سربي سر مرة قاركود واجري سربي سر noloshaasi ayaan ku koray hadda oo aan qaaday oo qof weyn noqday oo waliba aan shaqaystay waxay tirkiin in la oran jiray oo dhan ayaan mataqaanay la coloobay sababtuna sababtaasi bay ahayd sheekh Abu Dalxow colaadaasi baan iyo inaan ragna kala gaadhay maxaad igula talin lahayd bay leedahay falyatafadal mashkuuran ma'juura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قبل يرتأى وحان ليهي هل أهل رجع يضمر كإسقابنا وحان ليهي هل أهل وحان سكار مالنا يا أرن أن هذا كهر دور تركسو العليي أن إلي والدين تإسقابه aabbaha iyo hooyada ayaa waxay qayb weyn ka qaataan carruurtoodu inay jeclaadaan ama u xiisaan guurka iyo zawaajka iyo inay nacaan waan sii tafsiiliyey oo waan sii dhexgalay oo waxaan idhi oo ilaahay waafajiyey tabaaraka wa tacaala kaba soo qaad gabadhaadii oo arkaysa hooyadii iyo aabbihii oo aad isu jecel oo isu qoslaya oo wax wada cunayo wax wada cabaya oo isu sabrayo isu tanaasulaya oo tacaawun iyo wax wada qabad uu ka dhaxeeyo is ammaanaya mid walba midka kale uu ammaanayo leeyahay hooyadiin iga hormariya iyo maya aabbihiin iga hormariya hooyadii oo zawjkeeda aad u ateecaysa oo maqlaysa aabihii oo xuquuqdii hooyadii siinaya oo gudanaya gabadhu nooca markay u aragto aad u dhegaysta hooyadii iyo aabihii oo gurigii wada galay oo qosol yar ku dhufanaya oo hoos u sheekaysanaya oo xamxamlaynaya gabadhuna ay qaan gaadhay oo 17 jir ilaa 20 u dhaxayso guurna ay ku hamiyeyso hareeraheeda waxa ka dhacayana ay arkayso iyo markay gabdhaha ay isleegiin ay la sheekaysato huna bay gabadhu waxay leedahay talow aniga aabbahay oo kale ma heli doonaa aniguse talow hooyaday oo kale ma noqon doonaa markaasay gabadhu waxay u degdegaysaa guur bay u degdegaysaa waayo waxaa ka shaqeeyey arrinkaa waa risaalo waa barqiya caajila waa war degdega waa message caadi aan ahayn oo ku socda ilmaha laakiin adigu ma garanaysid cagsigeeda eeg gabadhan sida hadda ay ka dacwoonayso nolol adag baan ku soo koray hooyo aabbahay wuxuu dili jiray hooyaday mararka qaarkood geed buu ku xidhi jiray markaasuu garaaci jiray gabadhu nooca markay aragto waxay u arkaysaa guurku inuu yahay wax aan la geli karin ragoo dhan waxay ku qiyaasaysaa aabbaheed bay ku qiyaasaysaa sidaa daraaddeed baa gabadha waxay ka ahayd su-aasha arrinkaa hadda ku kallifay waa qiyaaska cajaa'ibka badan weeye arrintaasi horay baan u idhi haddana waxaan leeyahay gabadha waxaan leeyahay gabanay horta rag aabbaha oo keli a ma aha sida aad sheegtay hadduu aabbaha yahay rag aabbaha oo kale ma aha rag waa badan yihiin qaar wanaagsan baa jira inta badanna way wanaagsan yihiin qaar ku casayn baa jira qaar ka la rag badan kuu yeelayaa jira qaar halkaa wadnaha ku gashanayaa jira qaar gacanta ku saarayaa jira qaar kuu qoslayaa jira qaar kuu naxariisanayaa jira qaar hadalkaad jeceshahay kugula hadlayaa jira qaar waxaad jeceshahay ku siinayaabaa jira shaydaanka iska naar
qiyaaska noocan oo kale ana ood saa ad ugu qiyaasay ragoo dhan aabbahaana waa gartaa oo gabar yar baa tahay maadaama adoo gabar yar ah aad ku dhiiratay inaad warqad u soo qorato ila tali waan kula talina talama qaadan waan kula talina haddaba qalbigaaga fur waxaan ku leeyahay talada koowaad waa midaan hormariyey raggu aabbaha oo keli a ma aha intii aan soo sheegay kuwa ku siinaya baa jire ilaahay tala saaro oo horay u soco oo istikhaarayso oo ilaahay u tuko tabaaraka wa tacaala aabbahana wuu ku dhalaye hadduu nool yahayna baari u noqo adiga dhinacaaga haddii uu dhintayna u ducee intaasaan gabaday ku dhihi horay u soco ha niyad jabin aabbaha waxaad ku qiyaasaysana kuwa intaa ka wanaagsan baa jira oo wax badan ku siinaye horay u soco baan ku dhihi aabbaha iyo hooyada waxaan leeh ninka waxaan leehay ilaahay ka baq gabadhani addoon bay agtaada ku tahay aniga isleh inta imaqlaysa ayaan leeh inta dumarkooda disha bay risaaladu ku socotaa waxyaalaha cajiibka badan nabigeenna sala allahu calayh wasalam uu leeyahay mid idinka mida intuu sidii dameerihii u garaaca xaaskiisa miyuu haddanana wax ka raadsan oo sariirta la seexa nabigu saasuu su-aasha ragga u weydiinaya calayhi asalaatu wassalaam garaaca dumarku xataa wadribuuhunna ilaahay markuu leeyahy subxaanahu jalla wacalaa kolka hore waxaa laga hormariyey arrimo hore faciduuhunna horta wacdiya wahjuruuhunna fi lmadaajic jiifka oga haajira garaacu marka saddexaad buu imaan karaa laakiin garaacaas qur'aanka lagu sheegay rasuulkii qur'aanka lagu soo dejiyaa noo fasiray oo yidhi darban hayru mubarix waa garaacan bararinaynin dhiigna ka keenaynin lafna jebinaynin akhlaaqdii rasuulka markaad fiirisaanna sala allahu calayhi wasalam anas binu maalig iyo caaisha iyo haweenkii nabigu uu qabay iyo gabdhihii uu nabigu dhalay iyo saxaabadii nabiga la noolaa markii aad aragtaanna wuxuu nabigu lehy sal ly slam khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahli ninka idinku khayr badan waa ninka reerkiisa u wanaagsan wacaashiruuhunna bilmacruuf war wanaag kula dhaqma ayuu nabigu lehy sal ly salam haaulaa'i laysuu biakhyaarikum kuwa dumarkooda garaacaya akhyaar ma aha ayuu nabigu leeyahay sala allahu calayh waali wasalam idan ragow ilaahay oga baqa dumarka war addoommay agtiinna ku yihiin ilaahay tabaaraka wa tacaala ammaanuu kugu dhiibay ammaanadaa ilaali gabdhahana waxaan leeyahay ha ku kallifina raggiinna inaad intaad maqli weydaan dembigaasoo kale aad gelisaan ee idinkuna xuquuqdiinna ilaaliya biidni illaahi tabaaraka wa tacaala xuquuqda raggiinna ilaaliya biidni illahi tabaaraka wa tacaala noloshu halkaas ayay ka dhammaystirmaysaa si aanan muxaadaro iiga noqonin su-aashuna ay jawaab kooban ay u noqoto gabadhana waxaan leeyahay horey u soco aalaaf min alrijaal oo aabbaha ka fiican baad helaysaa hadduu hooyadaa dili jiray adiguna hooyadaa ka wanaagsanow biidnillahi tabaaraka wa tacaala maxaa yeele hooyadaa waxaa laga yaabaa wixii loo dilayey dilkii hadda waan ka soo hadlay inuus inaan la ogolayne wixii loo dilay laga yaabaa lafteedu inay aabbaha ay dhibaysay adiguna gabar baariyada noqo biidnillahi tabaaraka wa tacaala siduu nin baarra ilaahay kuu siiyo jalla wacalaa su-aasha jawaabteeda intaasaan kusoo koobaya wallahu aclam